madaxweyne si waafaqsan qodobka soddon iyo saddexaad faqradiisa shanaad ee xeerraataadka golaha shacabka gudoomiyaha golaha shacabka wuxuu 20-kii luulyo 2019 magacaabay guddi ku meel gaara oo diyaarinaya sharciga doorashooyinka qaranka guddigaas oo ka kooban 15 xildhibaan kana tirsan xubnaha golaha shacabka waajibaadka shaqo ee guddiga waxaa ka mid ah in sharciga doorashooyinka qaranka ay soo gudbisay xukuumadda golahana laga hor aqriyay kalfadhigii shanaad ay ka soo baarandegaan una soo diyaariyaan akhrinta labaad ayagoo waafajinaya dastuurka ku meel gaarka iyo shuruucda kale ee dalka sidoo kale inay la tashadaan cid waliba oo sharciga tayayntiisa looga maarmin sida guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka wasaaradda arrimaha gudaha dib-u-heshiisiinta iyo federaalka dowlad goboleedyada dalka hay'adaha amniga xisbiyada siyaasadeed iyo dhammaan ururada bulshada ururada rayidka qeybaheeda kala duwan shacabka soomaaliyeed waxay inooga fadhiyaan mudane madaxweyne in sanadka 2020 dalka aanu gaarsiino doorasho xor iyo xalaal ah haddaba sidaas ay u suurtagasho xukuumadda federaalka waa in si degdega usoo gudbisaa dhammaan shuruucda lagama maarmaanka u ah doorashooyinka qaranka oo ay ka mid yihiin sharciga jinsiyadda wax ka beddelka sharciga axsaabta siyaasadeed sidoo kale si waafaqsan qodobka 109 xarafka iyo qodobka 109 xarafka d ee dastuurka ku meel gaarka ah xukuumadda waa inay si dhaqsaa usoo gudbisaa xubnaha guddiga adeega garsoorka iyo maxkamadda dastuurka si baarlamaanka federaalka ay u ansixiyaan wada shaqaynta labada aqal waxaan jecelahay inaan halkan si weyn ugu xuso in wada shaqaynta labada aqal ee baarlamaanka federaalka soomaaliya ay tahay waajib dastuuri ah hor yaalla labada gole golaha shacabka iyo golaha aqalka sare waxay wada wadaagaan howlo badan oo kala ah kuwa sharci dejin ah iyo kuwa aan sharci dejin ahayn oo si cad uga xusan cutubka 6aad gaar ahaan qodobada 55 56 57 61 62 79 83 iyo qodobka 89 iyo 92 ee dastuurka ku meel gaarka ee jamhuuriyadda federaalka soomaaliya sidaa daraaddeed muddadii uu jiray aqalka sare golaha shacabka wuxuu si hufan oo wada jir ah ay u wada gudbeen howlo badan oo sharci dejin ah oo wada ansixiyeen shuruuc badan oo loo soo gudbiyey haddaba gudashada waajibaadkaasi dastuuriga waxaa mararka qaar ka dhalan kara khilaafyo ama caqabado taas oo ah mid la filan karo oo keenaysa dabeecadda mas-uuliyadeed howlaha la gudanayo mudanayaal waxaan rabaa halkaan inaan ka caddeeyo in khilaafaadkii soo kala dhex galay labada aqal ee baarlamaanka jamhuuriyadda soomaaliya la xalliyey kadib markii guddoonka labada aqal oo kaashanaya guddoomiye ku-xigeenada ama guddoonka labada aqal ee baarlamaanka federaalka ay yeesheen kulamo isdaba joog ah oo ay kaga wada xaajoonayeen arrimo badan oo ku saabsan howlaha hor yaalla labada gole labada guddoon waxay isku afgarteen in si wada jir ah loo wada shaqeeyo si ay ku jirto danta dalka iyo dadka Soomaaliyeed arrimaha u baahan samaystirka iyo qaab wada shaqaynta mustaqbalka ee labada gole arrimaha mudnaanta u leh labada aqal waxay noqon doonaan diyaarinta xeer hoosaadka wadajirka ah kaasoo faahfaahinaya habraaca wada shaqaynta labada gole oo fududayn doona wada shaqaynta labada gole waxaan idin xaqiijinaya in labada aqal ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka soomaaliya ay u wada shaqayn doonaan si hufan oo waafaqsan dastuurka ku meel gaarka
wada shaqaynta golaha shacabka iyo golayaasha wada shaqaynta golaha shacabka iyo golayaasha sharci dejinta dowlad goboleedyada golaha shacabka wuxuu xiriir wada shaqayn la leeyahay dhammaan golayaasha sharci dejinta dowlad goboleedyada hay-adaha sharci dejinta labada xeer waxay leeyihiin madal ay ku wada kulmaan ayna isku qaabsadaan arrimo badan oo waajibaadkooda shaqo ku saabsan kulankii ugu dambeeyay ee madasha golayaasha wuxuu ka dhacay magaalada Garowe caasimada dowlad goboleedka Puntland bishii Abriil 2019 taasoo ay ka soo qayb galeen gudoomiyaasha golayaasha sharci dejinta dowlad goboleedyada iyo guddoonka golaha shacabka higsiga muddada harsan ee xilhaynta golaha shacabka muddada saddexda kalfadhi harsan golaha marka lagu daro kalfadhiga maanta furmaya golaha waxaa hor yaalla howlo aad muhiim u ah oo ugu horeyso dhamaystirta dastuurka ku-meelgaarka ah ansixinta sharciga doorashooyinka iyo horumarinta xiriirka iskaashi ee labada gole heer federaal iyo heer dowlad goboleed waxaan u mahad celinayaa dhammaan hay-adaha gacanta ka geystay fududaynta shaqooyinka baarlamanka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya waxaan kaloo u mahad celinayaa ciidanka booliska Soomaaliyeed gaar ahaan taliyaha cusub ee ciidanka booliska Soomaaliyeed sida caadada ahaydna noo diyaarin jiray halkan xafladaha kalfadhiyada markay furmayaan iyo ayaga iyo dhammaan inta kala gacanta ku siisay oo saraakiishiisii ah aad iyo aad u mahadsantihiin waxaan ku soo dhawaynayaa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo si uu u gudto xilkiisa dastuuriga ah mudane madaxweyne ku soo dhawow بسم الله الرحمن الرحيم قدوميها قراءة الشعبك يكون حيانا ليسا قدوميها أقل كسرة حيث وزارها يقراءة وزيرها قدوميها محكمة السرة قدوميها قراءة الشعبك دولة أوالها أنها يدبوتي taliyaasha iyo sarreeyaasha ciidanka qalabka sida golaha shacabka ee labada aqal golaha shacabka iyo aqalka sare gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho iyo hawlgallada gobolka banaadir dambiilayaasha iyo dhammaan martida shan sane oo halkan nagala soo qayb gashay kooxda fanaaniinta heegan qalbeyda iyo baxda saxaafadda waxaan idinku salaamay salaatu islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu allah mahad iska leh oo maanta noo suurtageliyay inaan halkan munaasabadan wanaagsan aan ka soo qayb galno mudanayaal iyo marwooyin waxaa sharaf ii ah
inaan mar kale hortiina imaado anigoo gudanaya waajibaadkeeda dastuuriga ah ee furitaanka ka fadhiga lixaad ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya sida aad loo socotaan dalka Soomaaliya wuxuu marayaa marxalad adag oo u baahan in dhammaanteen aan u istaagno gacmahan isqabsanno si aan uga gudubno marxaladaas adag ee uu dalkeenu marayo uu ku jiro tan iyo intii aad i doorateen waxaan ka shaqaynayay sidii Soomaaliya ay u yeelan lahayd dowlad ka shaqaysa danaha dadka iyo dalka waxaan soo marnay marxalado badan oo kala duwan waxaan la dagaalnay ama weli la dagaalamaynaa kooxaha argagixisada ah oo si aan dalka uga sifeenno ama uga horeyno waxaan gaarnay guulo waaweyn oo lagu daawan karo hase yeeshee wax badanna waa noo harsan yihiin weli waxaan dadaal xoog leh aan ugu jirnaa sidii aan u soo celin lahayn sharaftii iyo haybadii ay ummadda Soomaaliyeed ee adduunka ku lahayd waxaan ka shaqaynay inaan xiriir wanaagsan oo ixtiraam iyo istixgelin ku dhisan aan la yeelano wadamada adduunka iyo kuwa mandaqada ee gobolka waxaan idin xaqiijinaynaa inaan marnaba aanan ka daali doonin inaan sharafkii iyo sumcaddii ummadda Soomaaliyeed ay lahayd aan dib u soo celinno inta aan talada hayno waxaan rabaa inaan idin caddeeyo in Soomaaliya ay istaagtay dibna aysan u noqon doonin insha Allah ومازلته مدن يعني مروين هيا ومازلته وما تنتهي حيانك دبو سونولينتا قرنبا الصوماليين اي صوب الاوضي معها من امد الصوماليين هي مدحديدة تونا اي دب ونقون كرا اما ونقون ايام وحان امد الصوماليين وباقيا دولة يا شعبها بيني امي يوبان سيدي هو تبتير الحياة أما أوقات كان لهايين أما ولد قال لهايين الرجالة عادتين دارين تأتيك الشعب الصومالي وإسلام كاف هي عيد كستا وكسوه الجيدة هرماركا يتبو صونولين قرنك الصوماليين وحان سيدا الهورين كوب بلقا غيبا لا يقوى عن سيدي لو قال لها قرنما الصوماليين ووارتا صرديق أرقنا ليه ومدى الصوماليين أي أسلمان تهي waxaan sidaas si leeg shacabka Soomaaliyeed aan ugu baaqayaa inay si dhow ula shaqeeyaan dowladooda kuna garab istaagaan sidii loo xaqiijin lahaa hadafka guud oo ah in la helo qarannimo iyo midnimo Soomaalinimo ku dhisan ma jiro wax Soomaalinimo ka yar oo la deeqi kara waxaa hubaala intii aan hadafkeena u gaarno shaqo badan ay noo taalo inkasta oo dalkeenu uu ku jiro marxalad adag ay ka mid tahay nabadgelyada dhaqaale ahaan siyaasad iyo bulsho ahaanba haddaan si wada jira
aan isu kaashanno oan awooddan isugu geenno waxaan aaminsanahay intaasoo idin inaan ka gudbi karno annagoo ka aanbaqaadeenna sidii aan si buuxda uga hanan lahayn qarannimadeenna waxaan dejinnay qorshayaal ciidan oo loogu talagalay sidii loogu sugi lahaa ammaanka dalka si rasmi ahna loogu ciribtiri lahaa argagixisada iyo cid kasta oo khatar ku ah ammaanka dalka iyo ummadda Soomaaliyeed waxaanse idinkugu baaqayaa mar kale inaan garab istaagtaan wiilasha iyo gabdhaha Soomaaliyeed oo naftooda u huraya maalin iyo habeenba una taagan sidii ay u soo celin lahaayeen sharaftii iyo xurmadii iyo karaamadii ay lahayd ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan waxaan sidoo kale aan dejinnay qorshe horumarin qaran oo tilmaan cad leh sidii uu dalkan u gaari lahaa horumar iyo isku filnaansho mustaqbalka hadduu ilaahay yidhaahdo mudanayaal iyo marwooyin mudanayaal iyo marwooyin si loo gaaro qarannimo midaysan qarannimo dhammaystiran waxaa maamulkaygu xoogga saaray sidii ummadda Soomaaliyeed horumar u gaari lahayd siyaasad loo dhan yahay iyo dejin xeer qaybsashada khayraadka dabiiciga waxaan dhaqan gelinay nidaamka diiwaangelinta ku-meelgaarka ah ee xisbiyada siyaasadda dhanka kale waxay dawladdu dhammaystirtay xulashooyinka qodobada dastuuriga ee dawladda federaalka iyo dowlad goboleedyadu ay ka wada xaajoon karaan ay ka wada shaqayn karaan sida maqaamka ay magaalo madaxda Muqdisho ay ku dhex yeelato hanaanka federaalka qaab dhismeedka dawladda astaynta awoodaha dawladda hanaanka dawladeed ee federaalka Soomaaliya hanaanka cadaaladda iyo asluubta federaalka iyo weliba hanaanka federaaleynta maaliyadda waxaan ka shaqaynaynaa sidii aan ku gaari lahayn hanaan dimuqraadi ah oo ku dhisan nidaam federaal kaasoo soo celin kara qarannimada Soomaaliyeed oo loo dhan yahay loona siman yahay waxaa sidaas la socotaan oo sugaya dhammaystirka sharciyada doorashooyinka iyo dib u eegista sharciga xisbiyada siyaasadeed oo muhiim u ah geedi socodka dimuqraadiyeedka dalka waxaan idinka codsanayaa inaad ansixisaan himsiyaashaas si degdeg ah si dalka uu u gaaro qof iyo cod hadduu ilaahay yidhaahdo mudanayaal iyo marwooyin sidii aan ku xusay khudbadaydii tan ka horreysay ee kalfadhigii hore muddadii koobnayd ee maamulkaygu jiray waxaa saxeexay 4 sharci oo uu ka mid yahay sharciga la dagaalanka musuqmaasuqa oo sidaad ogtihiin guddig u ah aasaasidda qaranimada Soomaaliyeed oo taaba gasha shuruucdaas aad ansixisay iyo kuwa kaleba oo idin hor yaalla waxaa muhiim ah xildhibaanada sharafta leh inay si degdeg ah iyaga u ansixiyaan sharci waa dal lagu dhisaa laguna dhaqaa sidaas awgeed waxaan mar kale ku soo celinayaa codsigay ahaa inaad dardargelisaan hirgelinta sharciyada idin hor yaalla iyo weliba kuwa kale oo idin hor imaan doona hadduu ilaahay yidhaahdo mudanayaal
kobcinta dhaqaalaha dalka waxay sidoo kale ka mid tahay tiirarka ugu muhiimsan ee dhismaha qarannimada sidaas awgeed waxaa maamulkaygu ahmiyad gaara siiyey si dib loogu soo yegleeli lahaa habdhaqan dhaqaale oo na gaarsiin kara inaan qarannimadeenni dib u haranno annagoo arrintaas ka duulayna waxaan dadaal dheeraada ku bixinnay sidii deymanka nalagu cafin lahaa iyo sidii aan kor ugu qaadi lahayn dakhliga gudaha waxaan alle mahadiisa aan ku guulaysanay inaan si hufan uga soo baxno dhammaan shuruudihii nalagu xiray ama nalaga rabay in maxaan ku idhaahdaa inaan gaarno yoolkii aan kula heshiinay hay-adda lacagta adduunka ee IMF-ka si maxaan ku idhaahdaa nalooga cafiyo deymaha shuruudahaas noo haray oo nalaga rabo inaan isdegdeg ku dhamaystirno waxaan rabnaa bishaan gudaheeda in la dhamaystiro hadduu eeba yidhaahdo madashii iskaashiga ee soomaaliya iyo beesha caalamka SPF waxaan bogaadinayaa maxaan ku idhaahdaa wixii ama lagu mahadcelinayaa hawshii ay qabteen iyo waxay soo saareen waxaan rajaynaynaa insha allah inaan hirgelino mudanayaal iyo marwooyin sidoo kale waxaa kobci dhaqaalihii gudaha kadib dib u habeyn aan ku samaynay oo aan habkii ururinta dakhliga gudaha aan ku guulaysanay waxaa kale oo intaas dheer oo aan gaarnay arrinta noo sahashay si joogta ah arrintaas noo sahashay si joogta ah inaan u bixinno bacdama aan aruurinay dakhli maxaan ku dhaha lagu filan inaan mushaaharaadkii shaqaalaha aan si joogta ah u bixinay guddooyinkii aan joognay taalo mudanayaal iyo marwooyin dhinaca dib u heshiisiinta waxaa naga go-an inaan ummadda soomaaliyeed aan dib u walaalayno annagoo u marayna dhaqankeedii wanaagsanaa ee iscafinta iyo isu tanaasulka qarannimo waxaan ku gaari karnaa oo keliya inaan iscafinno alle u noqonno dalkeenna dhismihiisa aan ka wada qayb galno oo si wada jira aan uga qayb galno haddii ay jiraan kuwa aaminsan in dadka soomaaliyeed ay qasab ku hogaamin karaan waxaan leenahay dadka soomaaliyeed way ka gudbeen xilligii jahwareerka way ka gudbeen xilligii lagu horkacsan jiray mudanayaal iyo marwooyin sidaad la socotaan waxaa alla mahadiisa oo dhowaan noo soo gabagaboobay shirkii dib u heshiisiinta ee galmudug natiijada aan ka gaarnay dib u heshiisiintaasna waxay noo fuulaysay inaan hadda u gudubno sidii aan u caawin lahayn oo aan u dhisi lahayn aan ugu dhisi lahayn maamul loo dhan yahay oo ummadoo dhan ay ku qanacsan tahay waxaa naga go-an inaan dhegaysanno cid kasta oo wax tabaraysa waxaa naga go-an inaan garawsanno cid kasta oo gawashiyo leh ama mudan waxaa naga go-an inaan raaligelinno cid kasta oo raaligelin mudan waxaa naga go-an inaan ka miro dhalinno dib u heshiisiin waasa oo ka hirgasha dhammaan jayga soomaaliyeed laakiin marna ma ogolaan karno oo ma ogolaan doonno hadduu ilaah yidhaahdo inaan dib u noqonno marna ma ogolaanayno inaan aqbalno wax darnimada ka yar marna ma ogolaanayno inaan aqbalno cid kasta oo ishor istaagta dib u yeelidda qarnimada soomaaliyeed
mudanayaal iyo marwooyin nidaamka federaalka waa nidaam ay ummadda soomaaliyeed u dooratay ama ay ku heshiisay inuu noqdo hab maamulka dowladdeena ilaa ay ummadda soomaaliyeed iyagu go'aansato inay wax ka beddesho nidaamkaasi waxa weeye uu jiri mana jirto dowlad ama koox gaar ah oo wax ka beddeli karta waxaase nasiib darro ah in dad raadkiis ay si khaldan u fahmeen ama u macneeyeen nidaamka federaalka wuxuu si cad u qeexayaa awoodaha awood qaybsiga dowladda dhexe iyo dowladda xubnaha ka ah laakiin ma siinayso madax bannaani gaar ah dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka ah waxaan idin xasuusinayaa in mas-uuliyadda ilaalinta qarannimada dalka iyo madax bannaanidiisuba ay saaran tahay dowladda federaalka ah waxaan mar kale rabaa inaan idin xusuusiyo in siyaasadeenna arrimaha dibadda saldhigeedu yahay in soomaaliya ay xiriir wanaagsan la yeelato wadamada dariska iyo kuwa caalamka labadaba xiriir iskaashi ku qotaba ilaalinta danaha qaranka soomaaliyeed waxaan shacabka soomaaliyeed u xaqiijinayaa in aanan marna ka gorgortami karin ilaalinta midnimada madax bannaanida iyo ilaalinta xuduudaheenna dhulka badda iyo cirkaba xiriirka aan la leenahay wadamada dariska ah waa mid aan doonayno inuu ugu dhismo ama uu noqdo mid iskaashi iyo mid siyaasadeed iyo mid amni kaasoo ku dhisan is-ixtiraam iyo wax wada qabsi siman oo dhinacyo mudan ah waxaa intaas deer oo aan kusoo gabagabeynayaa annagoo arrintaasi ka duwayno waxay dowladda soomaaliyeed taariikh muhiim ah ay uga jirtaa xoojinta xiriirka iskaashiga ee wadamada geeska africa gaar ahaan dhinacyada nabadgelyada dhaqaalaha siyaasadda iyo bulshada waxaan mar walba ku taaminaynaa sidii uu geeska africa u gaari lahaa xasilooni buuxda oo dhinac walba ah mudanayaal marwooyin waxaan kusoo gabagabeynayaa kalfadhigan kalfadhigan lixaad ee baarlamaanka waa noo fugan yahay maanta ay bisha tahay Oktoobar 9 2019 waa mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh